halkani waa BBC oo aad ka maqashaan muujadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo barta internetka ee bbcsomali.com. duur wanaagsan saaxiibada hawada naga dhageysanaysaa waa sabti 2 Maarso saacada Afrikada barina waxay haatan dul joogtaa 2 duurnimo oo go'a qodobada ilaacadeena duurnimo maanta ku maqli doontaan waxa kamid ah hoobiyaal lagu garaacay fila Soomaaliya iyo ciidamada Kenya oo ka baxay deegaanka ka tirsan gobolka Gada ee Soomaaliya maxkamad Puntland ku taala oo rakufsi lagu eedeeyay xukun toogasho ah ku xukuntay India iyo Pakistan oo wali aan xiisadoodu qaboobin rasaasay isku weydaarsanayaan soodinta Kashmir waxa sidoo kale aad maqli doontaan sagaalin baan aniga la soo tartamay caqabadaha waxay ka yimaadaan madax dhaqameed baa soo xusha raasada baarlamaanka anigu waxaan ku saalaynaa istimadeedii cuqaashay dadkayga bay rabeen anigu xagga deegaanka ka soo jeedo caqabado badan kala ma kulmin waa gabadha kaliya ee ku jirta baarlamaanka Puntland oo ka waramaysa caqabadaha ka haysta dumarka maamulkaasi iyo wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha qodobadaas iyo kuwa kale ayaa idaacadeena duurnimo ku maqli doontaan 30 daqiiqo ee soo socda waxaan idaacada soo saaray Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh anigoo afaad mutaxadir ayayna balse intaasi ka hor wararkii caalamka iyo Kawsar Maxamed Cabdullaahi mahadsanid Faadumo hay-adda Mareykanka u qaabilsan hawada sare ee NASA iyo shirkadda SpaceX ee laga leeyahay California ayaa ku guuleystay inay xariga ka jiraan dayax gacmeedka qoraxda u dhawaanaya markii ugu horeysay muddo 8 sano ah Mareykanka wuxuu ku tiirsanaa dayax gacmeedka Ruushka tan iyo sanadkii tagay ee 2011 5 4 3 2 1 0 ignition lift off vehicle is pitching downrange. Shiinaha ayaa soo dhaweeyay go'aanka Mareykanka ah inuu dib u dhigayo canshuurtii uu ku soo rogi lahaa badeecadaha Shiinaha ee ay kowda bisha Maarso. Jimcihii shalay ahaa canshuuraha Mareykanka ayaa sare u kacay 10 ilaa 25 laakiin madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in tani ay dib u dhici karto sababtoo ah waxa uu yiri waxaa jira wadahadallo dhanka ganacsiga ah. ciidamada Mareykanka ee Suuriya waxay sheegeen inay wadaan ka saaridda dhulkii u dambeeyay maleeshiyaadka Islaamiga ee dalka Suuriya. afahayeen u hadlay ayaa sheegay inuu rajaynayo in weerarkii ka dhacay tuulada Boqhows oo hadda galay maalintii labaad la soo afjarayo inta ay socdeen howlgallada kumanaan qof oo rayid ah oo u badan haween iyo caruur ayaa ka cararay meelihii uu weerarka ka dhacay ugu dambeynna waxaa soo baxaya xadgudub horle oo ka dhanna xabad joojinta xadka dalalka Hindiya iyo Pakistan ay ku muransan yihiin ee ku yaala gobolka Kashmir. Ladan waxaa loo maleynayaa inay fududeeyeen siideynta ay Pakistan siideysay duuliyaha u dhashay Hindiya kaasi oo waday diyaarad dagaal oo laga leeyahay Hindiya. Arbacadiina soo dhaafnay ayaana gacanta ay ku dhigtay Pakistan. maalmihii la soo dhaafay waxaa heer aad u xun maraysay xiisad u dhaxaysa dalalka dariska ah ee Hindiya iyo Pakistan. wararkii dunida ee BBC-dan waa inaga inta Faadumo aad ayuu mahadsan tahay Kawsar Maxamed Cabdullaahi oo nala socodsiinaysay wararkii caalamka aanu ku bilownay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal ayaa dil toogasho ah ku xukuntay 5 nin oo ku eedeysanaa kursi wadareed horey uga dhacay magaalada Gaalkacyo ku-xigeenka xeerliyaha guud ee Puntland Maxamed Xareed Faarax ayaa sheegay inay dhamaantood qirteen raggan lagu xulo haystay faqaahinta waxa ay Axmed Cawil Jaamac magaalada Garowe maanta waxaa maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal xukun dil ah ay ku xukuntay 5 dhalinyaro oo kufsi wadareed la sheegay inay ka geysteen magaalada Gaalkacyo waxaana kufsigan la cadeeyay inuu ka horeeyay dilkii iyo kufsigii Aisha Ilyas buux ka hor loogu geystay magaalada Gaalkacyo ilaaliyaha ee Puntland Maxamed Xareed ayaa xukunka kadib warbaahinta la wadaagay sida ay xukunku u dhacay waxa la hor keenay eedeysanayaasha magacyadooda kala yihiin Cabdirasaaq Axmed Cilmi ina Zainab Cabdullaahi 18 sano jir ah ku dhashay deegaan Gaalkacyo eedeysanaha labaad Cabdirasaaq Cali Cabdi ina Nasro Cali
18 sano jir ku dhashay deegaan Gaalkacyo. Eedeysanaha saddexaad Yuusuf Cabdullaahi Xirsi ina Shukri Cabbaas 18 sano jir ku dhashay deegaan Gaalkacyo. Eedeysanaha afraad Ugaas Mira Barre ina Zainab Daahir 19 jir ku dhashay deegaan Gaalkacyo. eedeysanaha shanaad Cismaan Maxamed Cabdullaahi ina Sacdiyo Maxamed 18 sano jir ku dhashay degmada Gaalkacyo. eedeysanayaashaas dhammaantood waxay ku eedeysanaayeen 8 dambi oo ah kufsi wadareed, isku day dil, handadaad, dhaawac, afduub, hub sharci darro ah watay. kadib maxkamadda darajada koowaad gobolka Nugaal saaka ay dhageysatay kiiskoodii garmaqalkoodii iyadoo loo qabtay qareen. kadib maxkamaddu waxay ku xukuntay shantoodaba dil toogasho ah. maxkamaddu waxay u cuskatay aayadda suuratul Maa'ida ee 33 iyo xeerka kursiga iyo xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. haddaba eedeysanayaashaas dambiga waxay ku galeen magaalada Gaalkacyo, way ka soo baxsadeen 4 kamid ah, waxaana lagu qabtay magaalada Qardho, dib baa loogu soo celiyay magaalada Garowe. kii shanaad oo ku haray Gaalkacyona ciidanka amniga soo qabtay Garowe la keenay. shantoodina qiraal ayay ku hayeen inay geysteen kufsi wadareedkaas. haddaba dhalinyarada wax kufsanaysa ama ku haminaysa inay wax kufsadaan, xafiiska xeelaaninta guud ee garsoorka Puntland iyo ciidanka amniga waxay wacad ku mareen cidii wax kufsatay in la dilo dil toogasho oo aan naxariistanba loo sameyn. Puntland asbuucyadan waxaa siyaaday kiisaska kufsiga gaar ahaan magaalada Gaalkacyo, waxaana weli socota baaritaanka dilkii iyo kufsigii Caaisha Ilyas aadan loogu geystay magaalada Gaalkacyo. Garowe ayuu arrintaasi ka socotaa oo waxaa ku howlan shaybaarka baaraha dambiyada oo kufsigu ka mid yahay. aad ayuu mahadsan yahay Axmed Awil Jaamac oo warbixintaasi magaalada Garowe nooga soo diray. haatanna dhankaas iyo Muqdisho, dhowr hoobiye ayaa la soo sheegayaa inay ku dhaceen gudaha madaxtooyada Soomaaliya. duqeyntan ayaa ku soo beegmaysa maalin uun kadib markii weerar dad badani ay ku dhinteen oo ka dhacay wadada Makka al-Mukarrama ee aan sidaasi uga fogeyn madaxtooyada Soomaaliya. dhanka kalena ciidamada Kenya ka joogay deegaanka Faafaaxdhuun ee gobolka Gedo ayaa lagu soo waramayaa inay isaga bixeen aagaasi. wararkaasi waxaa faahfaahintooda noo haya wariyaha BBC-da ee Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan. khadka telefoonka ayuu haatan si toos ah ugu jira. Ibrahim, weerarkani wuxuu dhacay duhurnimadii maanta. ilaa 4 hoobiye ayaa lagu weeraray xayndaabka ay ku taala xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho iyo dhismayaasha ku dhow. hoobiyaashaasi mid kamid ah wuxuu ku dhacay meel aan ka fogeyn xafiisyada guddiga doorashooyinka qaranka oo ku dhex yaala xarunta madaxtooyada. gudoomiyaha guddigaasi Xaliime Ismaaciil Ibrahim Xaliime Yari oo aan telefoonka kula hadlay waxay ii sheegtay in wax khasaare ah aanu geysan hoobiyahaasi ku dhacay meel aan sidaa uga fogeyn xafiisyadooda ku yaala xarunta madaxtooyada. hoobiye kale wuxuu ku dhacay dhismaha wasaaradda ganacsiga ee magaalada Muqdisho oo ayaan madaxtooyada ka fogeyn. waa dhabarka dambe ee tiyaatarka qaranka. isagana waxaa la sheegay marka laga reebo burbur yar in aanu wax khasaare ah geysan. sidoo kale 2 kale oo hoobiye ayaa ku dhacay xayndaabka xarunta madaxtooyada. ilaa hadda lama soo warin wax khasaare ah oo ay hoobiyaashaasi geysteen marka laga reebo burbur yar oo meelaha qaar ay ka geysteen. waxaana hoobiyaashaasi maanta duhurnimadii lagu weeraray xarunta madaxtooyada sheegtay al-Shabaab. ilaa hadda wax wara oo kasoo baxay hay'adaha amniga iyo kuwa kale ee dowladda federaalka ahi ma jiraan. Faadimo, weeraradan waxay imaanayaan maalin uun kadib markii weerarkii ugu saacadaha badnaa al-Shabaab ay ka fuliyeen bartamaha magaalada xarumo ganacsi iyo hoteelo ku yaala wadada Makka al-Mukarrama. waata Ibrahim, dhanka kalena ciidamada Kenya ee joogay deegaanka Faafaaxdhuun ee gobolka Gedo ayaa la sheegaya inay halkaasi isaga bixeen. maxaan arrintaasi war ka haynaa? saaka ciidamada Kenya waxay baneeyeen saldhig military oo weyn oo ku yaalay Faafaaxdhuun, halkaas oo ay fadhiyeen tan iyo sanadkii 2012 bishii Janaayo markii ay soo galeen gobolka Gedo ee Soomaaliya. qof ku sugan Faafaaxdhuun ayaa BBC-da u sheegay in saaka salaadii subax ay ciidamadaasi bilaabeen inay halkaasi isaga tagaan kahor inta aanay bilaabin ka bixitaankooda. waxay damiyeen isgaarsiinta Faafaaxdhuun, dabadeedna waxay ku baxeen wadada dheer ee Grilley ee aada xadka Soomaaliya
Soomaaliya iyo Kenya waxay sheegayaan in intii ay wadada ku sii jireen ay la kulmeen qarax dhinaceeda la dhigay laakiin khasaaraha si ay sababeen ilaa hadda lama oga. Faahfaahin waxay ahayd tiij waxaana ka dareemaysaa imaanshiyahoodii ciidamada Kenya ee gobolka Gado inay ahayd meelihii ugu horeeyay ee ay saldhigyada ka dhigteen. waa deegaan isku xira dhammaan magaalooyinka kala duwan ee gobolka Gado. qiyaastii waxay 80 kilomitir galbeed uga beegan tahay magaalada Baardheere ee isla gobolka Gado. warkii ugu dambeeyay ee faahfaahin ka imaanaya waxay sheegayaan in iskaasintu ay dib halkaasi ugu soo laabatay isla markaana dagaalyahana ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay durba qabsadeen. faahfaahin maamulkii deegaanka ka jira ayaa la sheegay inay hore u sii raaceen ciidamada Kenya waxaana noqonaysaa saldhigii ugu dambeeyay ee ugu weynaa Kenya gobolka Gado oo ay baneeyeen marka laga reebo Buusaar oo hadda ay fadhiyaan kuna dhow xadka Soomaaliya iyo Kenya. halkaasna waxaa ka muuqata in ciidamada Kenya ay ka soo xirxirteen alaabahooda gudahan gobolka Gado. sanadkii 2017 ay ahayd markii ay baneeyeen saldhig kale oo weyn oo ku yaalay gobolka Gado iyo sidoo kale magaalada Baardheere oo iyana ay fadhiyeen markii ay Gado soo galeen 2012. Faaduma aad ayuu mahadsanyahay. kaasi waxa uu ahaa wariye Ibraahim Maxamed Aadan oo nooga waramayay wararka ugu waaweyn ee gudaha Soomaaliya ka jiray. halkaad ka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. raalli ahaada ciladanka farsamada ayay ahayd dhegeystayaal. haatanna dalkaas iyo India iyo Pakistan xabad joojin ka dhaqan gashay andhahe deegaanada ay isku hayaan India iyo Pakistan ayaa durbadiiba lagu xadgudbay. ilaa iyo hadda lama sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay falkaasi. xiisada u dhaxaysa labada dal ayaa maalmihii la soo dhaafay gaartay meel adag. xalay waxa ay sii deysay duuliye India ah oo ay qabatay markii ay soo riday diyaaradiisa. magaalada Jammu waxaa warbixintan ka soo dirtay wariyaha BBC-da Yogoti Liyama Fartuun Ismaaciil ayaa soo jeedinaysa. kadib markii ay Pakistan sii deysay duuliyihii Hindiga ahaa ayaa xasilooni muddo 12 saac waxa ay ka jirtay soodinta ay labada ciidan isku horfadhiyaan. balse markii dambe waxa ay rasaas isku weydaarsadeen deegaanka Nowshera. labada ciidan waxa ay ku jiraan heegan sare. waxaa la rajaynayaa in xiisadu u dhaxaysa Hindiya iyo Pakistan ay qaboobi doonto maalmaha soo socda, balse ilaa iyo hadda xaaladda ayaa u muuqata mid aan la saadaalin karin. jimciina waxaa la soo sheegay in khasaare dhimasho ah ay ka dhalatay rasaasta ay isweydaarsadeen labada dhinaca. Hindiya ayaa dhawaan duqeyn ka fulisay gudaha Pakistan iyadoo bartilmaameysatay waxa ay ku tilmaantay xeryo argagixisadu ku leedahay deegaanadaasi. dhowr jeer ayaa labada dhinac waxa ay ku xadgudbeen xabad joojin ay gaareen, waxaana hadallo kulul isdhaafsanayay hogaamiyaasha labada dhinac. toddobaadkan waxay BBC Soomaali idin soo gudbin doontaa sheekooyin saxana ah oo u gaar ah dumarka. waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah sidee ayay nolosheeda u maareynaysaa haweeneyda kaliya ee ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Puntland. warbixin ku aadan gabadhii Soomaaliyeed ee toddobaad qabsatay warbaahinta caalamka. kadib dhacdooyinka kufsiga ee argagax lahaa ma la joogaa xilligii tacadiga ka dhanka ah dumarka loo aqoonsan lahaa musiibo qaran. horumarada dumarka Djibouti ay ka gaareen siyaasadda. sheekooyinkaasi iyo kuwa kale oo u gaar ah dumarka ayaan toddobaadkan idin soo gudbin doonaa. waxaana ku soo gabagabayn doonaa barnaamij dood ah oo dumar kaliya ay ka qayb qaadan doonaan laguna qaban doono magaalo madaxda dalka Djibouti taariikhdu markay tahay 8 bisha Febraayo. ballanteenu waa dhageysiga BBC Soomaali. saas ayaa inoo ballana. haatanna dhankaasi Puntland aan aadno. toddobaadkan waxaa laanta afka Soomaaliga ee BBC-du ay bilaabaysaa toddobaad aan ugu talagalay in aanu si gaara idinku soo gudbino warbixino khaasa oo aan haweenka Soomaalida kaga waramayno waxqabadkooda iyo wixii caqabado noloshooda soo food saarta. Puntland waxa ay ka mid tahay deegaanada Soomaaliyeed ee sida weyn qan siyaasadda. warbixintan waxaanu ku eegaynaa caqabadaha dumarka Puntland ka haysta dhanka siyaasadda. Axmed Cawil ayaa Garowe ka soo diray. waxa uuna ku bilaabayaa wareysi uu la yeeshay Naciime Cabdi Caarshe oo ah gabadha kaliya ee ku jirta baarlamaanka maamulka Puntland ee dhawaan la doortay.
sagaal nin baan aniga la soo tartamay marka caqabado way iska jireen laakiinse caqabadaha waxay ka yimaadaan madax dhaqameed baa soo xusha waraasta baarlamaanka saad ogtahay qaal baa soo xusha isimaa soo xula marka isimadii anigu waxaan ku sahlanaa isimadeydii iyo cuqaashaydii markaygiiba ay rabeen anigu xagga deegaanka kasoo jeedo caqabado badan kalama kulmin balse way jiraan gabdhuhu caqabadaha horyaalla aad bay u badan yihiin aniga laftayda kuwo badan waan soo arkay waa soo jiira hooyaa tahay haddana xafiiskaana fadhidaa sida u maraysaa shaqadii guriga iyo arrintii xafiiska ku yaallay oo kale ها labada waan isku hayn karaa waan isku hayaa hooyaan hay caruurba ay joogtaan waxbay bartaan inaan iyaga iyo waxbarashadooda iyo noloshooda ilaaliyo shaqadayda ilaaliyo diyaar baan u ahay waana ka bixi karaa waan sameeyaa waliba caruurtii baan imaada soo xalbo imaada ayaa goorma hadda ka baxsan shaqada 6 saac ka baxaya kadibna gurigii iyo ilmihii iyo caruurtii hawlihii gurigan galaya shaqooyinka guriga ma dhici karta arrimihii siyaasadda iyo inay wax badan oo xaafadda aad ka qaban jirtay xoogaa ay kaa soo saareen may waxba igama samayn karaan arrimaha siyaasadda waan ku jiraa shaqadaydii baarlamaan ahaan waan ku jiraa tii guri ahaana waan ku jiraa waxba igama dheeliyin weli inta badan dumarku kama dhex muuqdaan siyaasadda puntland waxaase jira in galaangalkoodu yar yahay xilliyada laga yaabo in ay raggu tartanka ay ku jiraan nasra cabdirasaaq waxa ay ka mid tahay dadka u ololeeya xuquuqda dumarka waxay sheegtay in hablaha la arko oo keliya xilliyada doorashooyinku ay soo dhowdahay hase yeeshee aan la arag waqtiyada ka horeeya inta badan waxaa moodaa marka doorashadu ay bil ama 2 bilood ka hor ama wixii taa 6 bilood ka hor in ay gabdhuhu maxaa la yiraahdaa xilligaas ay soo muuqdaan oo waxa weeyaan ay arrimihii siyaasadda rabaan inay ka soo dhex muuqdaan oo ay dhaqdhaqaaq bilaabaan marka waxaa loo baahan yahay waqti ka sii horeeya waqtiga doorashadu ay soo dhowdahay in gabadhu ay maaragtay si dhaqdhaqaaqdo odayaasha dhaqanka la kulanto beesheeda maaragtay wax ka sii dhamaysato si waxa weeyaan doorashada soo socota ay qayb uga noqoto arrinta la tilmaamay in ay dumarka puntland ay siyaasadda ay ka hortaagan tahay waxaa la sheegaa in ay ka mid yihiin odayaasha dhaqanka oo aan aaminsanayn gabar inaysan xagga siyaasadda ay ku matali karin sida uu sheegay axmed sheekh xasan oo muuse oo ka mid ah waxgaradka puntland gabdhaha iyo ragga dhaqankooda iyo shaqooyinka loo kala dirsaday waa kuwa rabbi u diray kuwa hadeer cusub ma aha waxaa jirta maamul dumarku uu sharcigu u ogol yahay oo aan hadeer la tirin karin hebel iyo hebel lama dhihi karo laakiin dumarku waxay leeyihiin limit ay ka shaqayn karaan oo awoodeeda leeyihiin oo maxaan niraahdaa ay jirkeeda leeyihiin oo ay qaban karaan raggana ay kala mid yihiin baa jira aad ayuu mahadsan yahay axmed cawil jaamac warbixintaasi noo soo diray galabtana barnaamijka ciyaaraha waxa uu soo gelayaa 12 saacada London oo u dhiganta 3 Afrikada bari waxa uuna socon doonaa ilaa 6 maqribnimo ee waqtiga Afrikada bari saas awgeed barnaamijkii caadiga ahaa ee 5 galabnimo bixi jiray maanta ma jiri doono sidaas iyo dhageysi wanaagsan barnaamijka dheer ee ciyaaraha ciyaarta tooska ee galabtana waa kulan xiiso leh oo u dhaxeeya Tottenham iyo Arsenal haatan baafinta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo Caasha Saciid Xasan iyo Samiira Cabdullaahi Jaamac Samiira mahadsanid Caasha baafinta ugu horeysa maanta waxayna soo gaartay Mahdi Saciid Guuleed oo jooga Wisil waxa uu baafinaya Lul Mahdi Saciid waxa uu dambeysay iyadoo ku sugan dalka Yemen sanadii 1999 hadaba hadii ay maqlayso Lul Mahdi Saciid ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Mahdi Saciid Guuleed iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Wisil ama telefoonka numberkiisu yahay 2529 nadiifo geel cusmaan oo joogta Garowe waxay baafinaysaa Caasho Geelle Cusmaan waxa ku wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen 2013 hadaba hadii ay maqlayso Caasho Geelle Cusmaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo nadiifo Geelle Cusmaan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garowe Nuur Xasan Aadan oo jooga Wisil waxa uu baafinayaa Xaashi Xasan Aadan waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Kakuma sanadii 1998 hadaba hadii uu maqlayo Xaashi Xasan Aadan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Nuur Xasan Aadan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Wisil Fardowsa Axmed Warsame oo joogta Garowe waxay baafinaysaa Saacadiya Axmed Warsame waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan
ingiriiska 2016 haddaba haddii ayna maqlayso Sacdiye Axmed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Firdowsa Axmed iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Garowe. Faysal Cabdi Shire oo jooga Wisil waxa uu baafinayaa Khadra Cabdi Shire waxa ugu hordambeysay iyadoo ku sugan dalka Yemen sanadii 1998 haddaba haddii ayna maqlayso Khadra Cabdi Shire ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Faysal Cabdi Shire iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Wisil ama telefoonka numberkiisu yahay 229 Axmed Daahir Maxamuud oo jooga Garowe waxa uu baafinayaa Mursal Daahir Maxamuud waxa ugu hordambeysay isagoo ku sugan Yemen 2015 haddaba haddii uu maqlayo Mursal Daahir ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Axmed Daahir Maxamuud iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garowe ama telefoonka numberkiisu yahay 9961864 Shariif Cali Aadan oo jooga Wisil waxa uu baafinayaa Raag Cali Aadan waxa ugu hordambeysay isagoo ku sugan dalka Ciraaq sanadii 2017 haddaba haddii uu maqlayo Raag Cali Aadan ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Shariif Cali Aadan iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Wisil. Salaad Yuusuf Axmed oo jooga Walaweyn waxa uu baafinayaa Ibrahim Salaad Yuusuf waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Kenya 2013 haddaba haddii uu maqlayo Ibrahim Salaad Yuusuf ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Salaad Yuusuf iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Walaweyn ama telefoonka numberkiisu yahay 0662669999 Arday Yuusuf Cumar oo joogta Wisil waxay baafinaysaa Mahad Yuusuf Cumar waxa ugu hordambeysay isagoo ku sugan dalkani Kenya sanadii 2012 haddaba haddii uu maqlayo Mahad Yuusuf Cumar ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Arday Yuusuf Cumar iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Wisil ama telefoonka numberkiisu yahay 2525757 Maxamed Cabdi Muuse oo jooga Afgooy waxa uu baafinayaa Cali Maxamed Cabdi waxa ugu hordambeysay isagoo ku sugan Canada 1993 haddaba haddii uu maqlayo Cali Maxamed Cabdi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Maxamed Cabdi Muuse iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Afgooy. Umar Cali Wadani oo jooga Garowe waxa uu baafinayaa Nuur Umar Cali waxa ugu hordambeysay isagoo ku sugan Jigjiga sanadii 2014 haddaba haddii uu maqlayo Nuur Umar Cali ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Umar Cali Wadani iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garowe. Bashiir Nuur Faarax oo jooga Wisil waxa uu baafinayaa Nuur Faarax Xirsi waxa ugu hordambeysay isagoo ku sugan Itoobiya 2014 haddaba haddii uu maqlayo Nuur Faarax Xirsi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Bashiir Nuur Faarax iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Wisil. Ayaan Maxamed Faarax oo joogta Garowe waxa ay baafinaysaa Foos Maxamed Faarax waxa ugu hordambeysay iyadoo ku sugan dalka Ingiriiska sanadii 2015 haddaba haddii ayna maqlayso Foos Maxamed Faarax ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Ayaan Maxamed Faarax iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garowe ama telefoonka numberkiisu yahay 997699200. Maxamed Nuur Faarax oo jooga Hubyo waxa uu baafinayaa Nageeye Nuur Faarax waxa ugu hordambeysay isagoo ku sugan Itoobiya 2019 haddaba haddii uu maqlayo Nageeye Nuur Faarax ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Maxamed Nuur Faarax iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Hubyo. Malayka Maxamed Cali oo joogta Garowe waxay baafinaysaa Deeqa Maxamed Cali waxa ugu hordambeysay iyadoo ku sugan dalka Ingiriiska sanadii 2015 haddaba haddii ayna maqlayso Deeqa Maxamed Cali ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Malayka Maxamed Cali iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garowe ama telefoonka numberkiisu yahay 997688475. Najma Xasan Yuusuf oo joogta Wisil waxay baafinaysaa Daahir Xasan Yuusuf waxa ugu hordambeysay isagoo ku sugan Itoobiya 2017 haddaba haddii uu maqlayo Daahir Xasan ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Najma Xasan iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas
ay ku leedahay wisil. maxamuud maxamed yuusuf oo jooga garowe waxa uu baafinayaa maxamed yuusuf cigaal waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Australia sanadii 2013 maqlayo maxamed yuusuf ay jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa hal maxamuud maxamed yuusuf iyadoo wixii wara loo sii maray baafinta bishaas ee ku leedahay garowe ama telefoonka numberkiisu yahay 705 xamso cabdi aadan oo joogta wisil waxay baafinaysaa aadan waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Itoobiya 2010 haddaba hadartoon cabdi aadan ama way jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hal la gaarsiiyo xamso cabdi aadan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay wisil ama telefoonka numberkiisu yahay 256 nadiifo isaaq cabdi oo joogta garowe waxay baafinaysaa xasan cabduqaadir xasan waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2010 haddaba hadii uu maqlayo xasan cabduqaadir xasan ama way jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa hal la gaarsiiyo nadiifo isaaq cabdi iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay garowe ama telefoonka numberkiisu yahay 908 57 liibaan saciid salaad oo jooga wisil waxa uu baafinayaa hani axmed cumar waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Itoobiya 2002 haddaba hadii ayna maqlayso hani axmed cumar ama way jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hal la gaarsiiyo liibaan saciid iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay wisil. maano xuseen malaaq oo joogta garowe waxay baafinaysaa xamiido xuseen malaaq waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2015 haddaba hadii ayna maqlayso xamiido xuseen malaaq ama way jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hal la gaarsiiyo maano xuseen malaaq iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay garowe ama telefoonka numberkiisu yahay 90759 hadiyo cali saciid oo joogta wisil waxay baafinaysaa abshiro cali saciid waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Kenya 2001 haddaba hadii ayna maqlayso abshiro cali saciid ama way jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hal la gaarsiiyo hadiyo cali saciid iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay wisil ama telefoonka numberkiisu yahay 225 Ilyas Macalin Cabdiraxmaan oo jooga garowe waxa uu baafinayaa ubax cilmi waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2016 haddaba hadii ayna maqlayso ubax cilmi ama way jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiiyo Ilyas Macalin Cabdiraxmaan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay garowe ama telefoonka numberkiisu yahay 907 nasra axmed cumar oo joogta wisil waxay baafinaysaa jimcaale axmed cumar waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Talyaaniga 2011 haddaba hadii uu maqlayo jimcaale axmed ama way jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo nasra axmed iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay wisil ama telefoonka numberkiisu yahay 252 mahdi yuusuf macalin oo jooga garowe waxa uu baafinayaa aamino yuusuf macalin waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2013 haddaba hadii ayna maqlayso aamino yuusuf macalin ama way jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hal la gaarsiiyo mahdi yuusuf macalin iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay garowe duraan aadan cali oo jooga wisil waxa uu baafinayaa mahdi aadan cali waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Kenya 2007 haddaba hadii uu maqlayo mahdi aadan ama way jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa hal la gaarsiiyo duraan aadan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay wisil. naciime cabdi nuur oo joogta wisil waxay baafinaysaa ifraax cabdi nuur waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Kenya sanadii 2010 haddaba hadii ayna maqlayso ifraax cabdi nuur ama way jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hal la gaarsiiyo naciime cabdi nuur iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay wisil ama telefoonka numberkiisu yahay 256 maxamed cusmaan jaamac oo jooga wisil waxa uu baafinayaa cabdisalaam jaamac waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Itoobiya 1988 haddaba hadii uu maqlayo cabdisalaam jaamac ama way jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa hal la gaarsiiyo maxamed cusmaan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay wisil. xalimo muuse faarax waxay baafinaysaa maxcado cali maxaad waxa uu ku sugan dalka Yemen sanadii 2000 haddaba hadii ayna maqlayso maxcado cali maxaad ama way jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hal la gaarsiiyo xalimo muuse faarax iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay garowe ama telefoonka numberkiisu yahay 907 42 22 89
baafinta ugu dambeysana maanta waxay naga soo gaartay daahir xirsi afrax oo jooga wisil waxa uu baafinaya qadra xirsi afrax waxa ugu dambeysay iyadoo ku sugan Ethiopia 2017 haddaba haddii aynu maqlayso qadra xirsi afrax ama bay jirto cid garanaysa fadlan markeeda la gaarsiiyo daahir xirsi iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishaas ay ku leedahay wisil ama telefoonka lambarkiisu uu yahay 2526147 baafintiina maanta waa naga intaas baafintaasi waxay ugu dambeysay idaacadeena soo saaray maxamed cabdiraxmaan sheekh waxaad taxadir ee la socodsiinaya tan iyo intaanu mar dambe kulmi doono 9 caawa waxaan kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo